dagaalka daafeed ma ahan dagaalada hadda ka socda daafeed ee waa dagaal qadiimi oo dhacay 100 sano ka hor. xamaaradu waxa ay muddo fog ku hamiyeen inay qabsadaan ilaa magaalada Balcad oo ay sheegtaan balse mar walba waxa ka hortagi jiray halyeeyo Soomaaliyeed. qabiilada Soomaalida ee degan Webi Shabeelle hareerihiisa ayaa ka difaacay isku daygoodii xamaarada xilligaasi. gaar ahaan qabiilada ku suntan dagaalkaasi waxaa ka mid ah Gaaljecel, Moobleen iyo Ajuuraan. dagaaladii waaweynaa ee beesha Gaaljecel dhulka Soomaalida kaga difaacday iyo beelaha kale ee Soomaaliyeedba waxaa ka mid ahaa dagaalkaasi daafeed. axmaarada oo rabtay inay ka soo wareegto dhanka Webi Shabeelle ayaa waxaa ka hortagay beesha Gaaljecel sida uu qorayo buugga African Italian Forumkiisa 27 iyo 28. dagaalkaasi waxaa lagu dilay in ka badan 1500 oo fardooley axmaara. dagaalkaasi kadib xabashidu dib dambe uma soo damcin in ay qabsato dhulka Webi Shabeelle ku teedsan. xigashana buugga waxaad ka helaysaa African Italian boggiisa 27 iyo 28. mahadsanid haddaad dhammaysatay warbixinteennan. waxa aan ugu jecelahay waa inaad bartan nagula saaxiibto ood falowda noogu deeqdo walaal.